بسم الله الرحمن الرحيم أفر شيء oo ay tahay inuu qof kasta iska dhiso qaybta koowaad waxa weeyaan waxa la dhahaa spiritualka amba ruuxda qofku inuu ruuxdiisa dhiso oo uu si fiican uga shaqeeyo oo waxay ka qaadanaysaa waqti badan bay ka qaadanaysaa iyo juhdi badan iyo inuu waqti geliyo taasina waxa weeyaan waa inuu qofku joogteeyo oo ku dadaalo dhanka cibaadooyinka waayo cibaadadu waa shayga xoojiya ruuxda xoojiya kana dhiga qofka qof qawiya ruux ahaan qaybta labaad waa caafimaadka qofku inuu caafimaadkiisa jiradiisa maskaxdiisa isaguna ilaashadaa aad iyo aad bay muhiim u tahay wax kastoo dhaawacayana uu ka hortago qaybta saddexaadna waxay noqonaysaa in uu qofku iska dhiso dhanka xirfadaha oo uu barto xirfado kala duwan xog badan akhriyo sidoo kalena isku daya mar walba in uu kororsado wax qiimihiisa maskaxeed iyo shakhsiyadba kor u qaadaya oo xirfada iyo aqoonba qaybta afraad waxay noqonaysaa inuu qofku wanaajiyo waxa la dhahdo network waa maxay network waa awooddu qofku u leeyahy inuu samaysto dadyo kala duwan oo isugu jira dad ka shaqeeya shaqooyin kala duwan kuwaas oo qaarkood yihiin ganacsato qaarkood yihiin waxa weeyaan macallimiin qaarkood yihiin waxa weeyaan dad aqoon yahanaa kuwa kalena yihiin dad ka shaqeeya oo meelo kala duwan hoggaankaa hadday noqoto waxa weeyaan dhanka dowladda iyo hadday noqoto dhanka waxa weeye shirkadahaba fursadani qofka waxa u siinaysaa inuu helo fursado kala duwan oo noloshiisana isbeddel lagu samayn karaya heli karayana cid ay wax ka wada shaqayn karayaan hadday noqoto mashaariic iyo hadday noqoto horumar kale oo waxa weeyaan qofka iyo cidda kala badan ah afartan qodob marka afar qodob oo aad ay muhiim u tahay qofka dhalinyarta inuu ogaado waayo waxa la dhahdaa welina qodobkan ugu dambeeya networka ah qofku markastuu sii weynaado waxa uu ogaanayaa in aanu u baahnayn saaxiibo laakiin uu u baahan yahay network oo noqonaysa cid isbahaysiya oo ay nolosha waxa weeyaan wax wada qabsadaan dan wadaagna noqdaan marka taasina waa mid aad muhiim ah oo ay tahay inay ku baraarugaan dhalinyartu kana horhayaan horena waa tii odhaha u ahayd englishi your network is your network hadba intaad haysato dada dan wadaag tihiin ama yacnihii bulsho kuga xeeran oo wanaagsan ayuu noqon doonaa dakhliga kusoo gelaya taasina waa mid aad ay u tahay in uu qofka dhalinyarta uga warqabo